بركو لمبر 1 جرانجر دونيdu leedahay dabaqo jaranjar uu leeyahay noloshu jaranjar ay leedahay jaranjar ba maxamed ii fuulay saas u bilaabay hada day samad garanin maxamed saas u bilaabay taa marka laga yimaado waxaan halkan ka cadeynayaa maama qadan baa sheegaya bismillaahir rahmaanir rahiim a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim kitaabka ilaahay ka maaha waxaan u soo galay waa qodobo inaan ka hadlo kaliya aan u soo galay live waxa igu wallaahaya waxa igu bilaahaya waxa igu tolaahaya inaan dooc iyo dareen iyo ogeysiis iyo maqal toona ka haynin muuqaalada iyo sawirada maama qadan laga keenay waxa igu wallaahaya waxa igu bilaahaya day gacanteydii midig waa taas Soomaaliye gacanteydii midig waa taas gacanta bidixna waa tafarqilkaas ku jiro kitaabka gacanta midig baan ku qabanaya gacanta bidix baan ku qabanaya hooseysa gacanta midigna waan saaraya kibir looguma dhaarto ciyaar looguma dhaarto hadaanad aaminsanayn oo aan kitaabka ilaahay aaminsanayn waan idin ku dhaaranaya caawa oo wala igu kalifay waxa igu wallaahaya waxa igu bilaahaya waxa igu inaan dooc iyo dareen toona kala hayn maama qadan kiiska ay soo oogtay ee ah in muuqaala laga keenay ee ah in sawir laga keenay waxa igu wallaahaya waxa igu bilaahaya waxa igu talaahaya inaan been idin sheegaynin oo ilaahay wuu i arkaa wala iyo bilaan ku dhaaranaya waxa igu wallaahaya waxa igu bilaahaya waxa igu talaahaya kaftan iyo ciyaar looguma dhaartee noo eega naga dawaada kitaabka oo igu wallaahaya oo igu bilaahaya oo igu talaahaya inaan maama qadan muuqaalada laga keenay iyo sawirada laga keenay inaan dooc iyo dareen toona ka hayn inaan soo dhiga hadalkeeda daay inaan dooc iyo dareen toona ka hayn cid soo dhigtay iyo cid haysay iyo cid keentay iyo cid hadda lu kule inaan ahayn oo ogeyn waxaan idinku dhaaranayaa guriga maama qadan qaran inta aan ku noolaa ee aan joogay ee aan ku noolaa inta wax ka cunayay mooyaane inaan muuqaal ka duubin ma muuqaalo aan public soo dhigayno ama TikTok soo dhigayno ama Facebook soo dhigayno ama social media muuqaal aan soo dhigayno mase wax kale wata gacanteydii midig waa taas waxa igu wallaahaya waxa igu bilaahaya waxa igu talaahaya oo ilaahay igaga sareeya oo rasuulkiisu igu og yahay oo wallaahaya oo bilaahaya oo talaahaya inaana guriga maama qadan intaan ku noolaa inaan ceeb ka duubin fadeexad ka duubin muuqaal ka duubin aanan ula imanin aanan la imanin inanteedana ka duubin hablaheedana ka duubin iyadana ka duubin waxa igu wallaahaya oo igu bilaahaya oo igu talaahaya inaan maama qadan muuqaalo aan ka duubay oo aan la joogay iyo qaaran snap kala baxay iyo qaar iyadu leedahay aan meel kala soo baxay inaanan haynin kalana soo bixin snapkeeda hadda daya hadalka la isku ma khaldo maama qadan iyo hablaheeda iyo caruurteeda inanka maxamed halka ay qodobkiisa waan ka hadlaya inanka maxamed halka ay dhiga qodobkiisa Soomaaliye daya halka inanka maxamed qodobkiisa ay dhiga laakiin maama qadan iyo ubadkeeda iyo familigeeda iyo wax la wadaaga day maama qadan iyo ubadkeeda inta kale maxamed mooyaane inta kale maxamed halka ay dhiga mooyaane inaanan waxna ka duubin inta aan la joogay oo aanan muuqaal ka duubin oo aanan muuqaal social media-hooda ku jira kala bixin oo aanan ka haynin ayaa igu wallaahaya oo igu bilaahaya oo igu talaahaya waad tuhintay hooyo waad iga dhaarisay waad tuhintay hooye waxa igu wallaahaya oo igu bilaahaya oo igu talaahaya oo aan ilaahay la hortagaya maalinta qiyaame iyo maantaba oo aan ilaahay la hortagaya inaanan muuqaal ka duubin inantaada ridwa ka duubin inantaada hani ka duubin inankaaga Cabdiwaxid ka duubin inankaaga kale Cabdiwaxid ka duubin inankaaga Mubaarak ka duubin inankaaga Barwaan ka duubin odaygaaga ka duubin ehelkaaga ka duubin qaraabadaada ka duubin waa dad kitaabka aaminayso waa wallaahi wa billaahi wa tallaahi inaan dooc iyo dareen toona ka hayn na waan ka dhaartay waxa la soo dhigay wad ituuntay hooyo inanka maxamed maama qadan waxay ilaa hadda difaacaysaa oo maama qadan aniga markii hore ii dulmiyeysay haddana ay ii dulmiyeysaa oo ay social media la joogo ii dulmiyeysaa foostooyinka igu riixaysaa waxay ii wadaa oo waxa wadi maqlaysaan waxa ay maama qadan foostooyinka igu soo riixaysaa oo dhibkaygii aan bartaa ka sheegay ay ila imanaysaa maama qadan oo ay u baabiinaysaa waa inankeeda maxamed difaacayso
oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxay maamaqada sawirada banaanka cidda keentay ma garanayo iyadu keentay ubadkeedu keen ku lug lahayd sida ha uga soo dhaaratay intay kitaabka gacanta midigta u saarto ayadoo Soomaali arkayso iyadoo ubadkeedu ha ka dhaartaan inaanay dooc iyo dareentoona ka haynin sawirada iyo muuqaalada Soomaaliyeed inaanay dooc iyo dareentoona ka haynin Soomaaliyeed ha ku soo dhaarataan qadan iyo ubadkeedu kitaabka gacanta midigta u saaran iyagoo wada jooga ha ku dhaartaan hadii aanay been sheegaynin qadan waxay ilaa hadda difaacaysaa oo qadan ay difaac kaga jirtaa inankeeda Maxamed sharaftiisa ayay ilaa hadda difaac ugu jirtaa inanka Maxamed baa soo noqday waa nin raga hadduu Maxamed Maalin habeenka soo fadhiisan la social media qadan ma naan gorgortaneen hadda lama gorgortamayo xumaan uma hayo ma caayayo jirkeeda wax kama sheegin iyada wax kama sheegin gurigeeda wax kama sheegin in ay aniga i dulmiday oo dulmi ii geysatay dulmigeena dagaal igu dartay ayaan haddana sheegaya hadhowna sheegaya haddana waxaan sheegaya cadeynaya qadan inay dagaal igu wado oo inta soo qoraysan ka joojiya ma garanaysaan qadan hadda waxa ay difaacaysaa waa inankeeda Maxamed waxa ay qadan hadda dagaal ugu jirtaa waa inankeeda Maxamed Soomaaliyeed bal Ilaahay baan idinku dhaariyay waan idin dhaariyay dad baatihiin aqliga Ilaahay wuxuu inoo siinaa wax ku garataan qoodhiin iyo xiradin iyo xiniintiin waan idin dhaariyay waan qodobaysanayaa hadaladii aan qodobaystay miyaa saa u qodobaystay oo aan sadar sida meel u dhigay inta la soo qodobeeyay miyaa la iga jawaabay miyaa la igu qoqoqago taasina waa sax taasina waa khalad waa maya la igama soo jawaabin qabiil kuma dagaalabin qabiil kuma hadlin haddana kuma hadlayo haddana kuma fadhiyo Soomaali Maxamed oo dhan baan u bandhiganaya arrinkayga haddaan qabiil doonayo iyo haddaan qabiil u baahanahay iyo haddaan qabiil doonayo inaan ku dagaalamo anigoo Hargeysa jooga waxaan oran lahaa tolay tolkayo haddaan anoo Hargeysa jooga ayaan haddaan doonayo oran lahaa tolay tolkayo baahi uma soo fadhiisan dunya aan doonayo uma soo fadhiisan haddaan idin sheegaya hadhow baan idin ku celinayaa anigu cumaamad uma baahni anigu lacag uma baahni anigu dunyo uma baahni anigu wax allaala waxaan social media aan soo fadhiisan uga baahanahay bini aadan ma jirto Ilaahay mooyee wax lacaga iyo wax cimaamada iyo wax dunyo oo aan doonayo aan u soo fadhiyo haddaad aragtaan kiiska beeneeyo haddaad aragtaan anigoo u soo fadhiya kiiska beeneeyo Hargeysa aan oo jooga labada qof ee is dhalay iyo labada qof ee is qaba oo inta iga joojiya police committee hadii kale committee wan xidhaya Soomaaliyeed mid baan idin weydiinayaa labada qof ee is qaba iyo labada qof ee is dhalay ayaa markay isfahmi waayaan kala fogaada si ay u kala ceebiyo ee la aadaan labada qof ee is dhalay iyo labada qof ee is qaba ayaa kala fogaada si ay u kala qadan markaan isfahmi weynay ee dulmiga waxaan isu geysanay aan ku kala ay geysatay dulmiga waxa ay geysatay aan ku fahmi waayay waan ka fogaaday waana ka tagay markaan dalal kale ku soo qaatay maxaan ku raahdaayay jawi ku soo qaatay waqti oo hintaan bilis iga daaya leef oo iga xumaanay hadii kale oo hintaan iga daaya bas committee waan xidhaday soo committee xidhanayo naga daaya deer walaalayaal hadaba waan idin sheegay waan idin ku celiyay waxaan idin sheegayaa labada qof ee isqabay labada qof ee is dhalay waan xidhanayaa committee daniyo Soomaalida baa si kala u qaadanaysa wala mana deynayaan oo intii committee kan oo inta ka daaya asxanto ama aan xidho haddaan xidhayna ii soo